السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربان صاحبة الصوماليات من كستوى الجوكتان يسك الصوت ضد ونسان جمعة المبارك إن شاء الله تعالى برنامج أدو حساب بطن أيام صوبا لقدونا وحانا كان دونا أفر قضب ومهمة أذين كلا وحانا كان سننا لايك تفلوغة سبسكرايبك يا شيرتا إن قعنت فرطان ما دام إيسان خرج إذنكو جوي ويهي والله سعطان حالة الدلك إيا ودada uu qaaday madaxweynihii dalka xasan sheekh maxamuud taas ayaana dul istaagayna warkeena kuma jirto xasan kanuu qalday halkan u istaagay sababtoo qof meeli u fayowdahay ayaa wax laga saxaa qofku hadduu dhiiqo dhex galo meel yaroo aad ka miirto ma laha waa inaad isagoo dhan dhaqdo ama muxuu ahay aad tidhaah nin waa nijaasowday ordoo iska baxa waxaa weeye marka ninkaasu dhiiquu dabaashay wadada uu ku socdana waxaa jumlad yar ku soo koobay siyaasi cabqari cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wuxuuna yidhi xasan wuxuu la mid yahay buu yidhi nin balli biyo u doontay ee biyihii ka soo waaya ka soo laabtay ee dhexda rag uga hor yimid ee la weydiiyey balliga ka warrina yidhi biyo kuma jirin ee raggii ay dhaheen bal waan ku soo nasiibsanaynaa ee isaguna markaa yidhi haddana anna waan idinkula soo nasiibsan waa nin indhihiisii aamini waayey sooma indhihiisii wuxuu soo arkay buu aamini waayey waayahay afarta qodob waxay kala yihiin marka qodob waxaan leeyahay xasan sheekh midna baarlamaanka federaalka soomaaliya midna beesha hawiye midna beesha soomaaliyeed afartaas qaybood ayuu barnaamijku ka koobnaan doonaa aan ka bilaabo beesha hawiyow shalay madaxweynihii ka horreeyey madaxweynaha hadda jooga waa ta inuu ka hor nimid oon la baxnay badbaado qaran qorigana aan garab ka gashannay farmaajo wixii aan ku haysannay wax ka mid ah ama u eg ayuu hadda xasan la yimid inkastoo wax badan oo farmaajo uusan samayn oo aad u foolxun xasan sameeyey haddana meesha aan muxuu ahay toy isaga keenaynaa waxay tahay jidka hadda xasan ku socdo oo u eg jidka aan farmaajo kula dirirnay tusaale ahaan farmaajo maamul goboleedyada muddo kordhin uma samayn laakiin hadda xasan sababtoo maamul goboleedyada muddo kordhinta shaqadarrada labada goor ugu sameeyey waxa uu u tirisayo ama u socdo waa inuu isagu muddo kordhin samaysto oo doorashada wakhtigeeda uusan ku qaban waa doorasho diid maxaa cabdullaahi farmaajo kelmadda kula dirirnay taasay ahayd qorigan garabka suranay badbaado qaran baan la baxnay waxaa weeye annagoo caasimaddii ummadda degan oo ay ahayd in sistamka aynu ixtiraamno ayaan dowladdii soomaaliyeed ee dhisnayd ku duulnay ummadda soomaaliyeedna ku qancinnay inaynu saxan nahay maadaama aynu nahay badbaado qaran oon qaranka badbaadinayno lama bixin badbaado hawiye lama bixin badbaado qabiil ee badbaado qaran baynu la baxnay hadday daacad naga ahayd marka oo run ay ahaayeen wixii shala aynu samaynay maanta waxaa nala ka rabaa ushu geedkeediibay ku taalaaye mar kale inaan la baxno badbaado qaran oo aynu ka hor tagno xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada xilligeeda markii la gaaro isku hareerayno sidii waagii hore sababtoo ah wax differensiya u dhexeeya muddo kororsi iyo muddo kororsi ma jiraan waa unu in kanu hawiye yahay kaasuna daarood ahaa taasna waxaa weeye naga saari mayso taas annaga waajib bay nagu tahay haddii aan saas yeeli weyno oo maanta aynu raalli ka noqonno in xasan sheekh maxamuud suu doono sharciga dalka ka yeelo beesha soomaaliyeed waxaa waajib ku ah inay nala xisaabtanto oo ay iska keenna celiso oo nala yidhaa qabiil tuuga ah mooryaan ah sistem aan rabin baa tihiin shalayna waxaad madaxweyne farmaajo ku weerarteen qabyaalad maantana shalay wixii farmaajo aad ka diideen adinka idinka yeelimen go'aankaas hadda waxaa qaatay beesha daarood sababtoo ah saciid cabdullaahi deni iyo ninka la yidhaahdo axmed maxamed islaam olready way iska tageen labadii maamul goboleed ee beesha daarood way danaysteen iyagu warka ha quruxsadeen laakiin waxaa hoos ka xadfan ku qarsoon ina adeerkeen maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ka diidnay xasanow kaa yeeli mayno waana qodob gar ah oo sax ah
wax kala ku meeraystay qarankiyaasaan la yeelkan laakiin sida saxda kelmadu waa sidaas ay ku saxan yihiin weli shalay labadan maamul waxaa weeye mucaarad bay ahaayeen farmaajo way diidanayeen badbaado qaran waxaa weeye way taageersanaayeen oo dabaday ka riixayeen sababtoo ah kelmadda na midaysay ayaa waxay ahayd ma doonayno muddo kororsi badbaado qaran saasaa lagu bixiyey shalay marka in adeerkood waxay ka diideen ilaa waxaa layidhi gacanu garabay gadaal u gashay madaxweyne farmaajo ugu dambayn wuxuu noqonayaa nin daarada walaalkood waxay ka diideen inay maanta xasan sheekh oo hawiyaa ka yeelaan suurtagal ma aha inay ka diidaanna way ku saxan yihiin go'aankaas beesha daaradu way qaadata laakiin waxaa lala yahay dir iyo digl iyo marfle iyo beeshii shanaad waan adinku dalka miyaydaan wax ku lahay maxaad la aamusantihi go'aanka daarood qaatay maad la qaadataan maad iska keeni celisaan haddaynu nahay hawiyi maad iska keeni celisaan shalay wixii aan ku diidnay maxamed cabdullaahi farmaajo haddaan maanta xasan rabna inaan ku taageerno maadna dhasaan tuuga tuuga dhashaati oo soomaali laga tashato ileen haddii inta kale isu tagto hawiya dhibic buu noqonayaa waxaa weeye beesha soomaaliyeed waxaan leeyahay waa inay naga tashato haddii aynu ku soconno ama ku taageerno xasan sheekh waxa uu wado oo aynaan dib u abaabulin badbaado qaran kale soomaalida intaasaan leeyahay xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay xasanow shalay qori baad garab ka gashatay madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee soomaali dooratay baad ku duushay ciidankii qaranka soomaaliyeed oo calankii soomaaliya halkaas ugu dhegan yahay baad intaasoo askari ka dishay si fiican ay dhegayso askartii qaranka haramcad iyo gorgor intaasoo askari baad ka dishay hotel maa'ida markaad ka dagaalamaysay iyo mirinaayo markaad ka dagaalamaysay labadaba sababta aad u dagaalamaysay waxaad ka dhigaysay askar si khaldan loo adeegsaday oo muxuu ahayd si khaldan ku dhimanaya maamulka meesha joogana responsibilityga uu qaadayo maadaama uu isagu sharci darro ku sito waxaa weeye marka laba mid noqonaysa inaad shala saxnayd ood maanta khaldan tahay mudan tahayna in la iska kaaceliyo oo shalay wixii aad nala samaynaysa aanu kugu samayn iyo inaad shalay khaldanayd oo lagugu maxkamadeeyo askartii soomaaliyeed ee gorgor iyo haramcad ee aad laysay ciidankii qaranka soomaaliyeed ee aad laysay lagugu maxkamadeeya xataa annagana lagu maxkamadeeya ilaa ma og tahay dembiga qofba in buu ku leeyahay rag afkay ka taageerayeen anigoo kale ah ragna waxaa weeye qoriga ayay ridayeen oo ciidanka xabadda ridayay wateen adugu aad ka mid tahay askartii aad laysay ee qaranka soomaaliyeed in lagugu maxkamadeeye muxuu ahayd lagu qisaasay noqonaysaa haddaad tidhaahdo maanta ayaan saxanahay maantay ayaan saxanahay haddaad tidhaahdo automatically waxay noqonaya farmaajana shalay inuu saxnaa marka nin saxan oo qarankii hogaaminaya haddaan ta ka hortid ciidanka qaranka laysay maxkamadda lagu soo saarad mudan tahay marka labada mid dooro inaad shalay khaldanayd oo muxuu ahayd askartii muxuu ahayd qaranka soomaaliya aad laysay lagugu maxkamadeeyo iyo in maanta aad khaldan tahay oo aad dib uga laabatid waxa aad wato xasanna intaasaan leeyahay baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan leeyahay doqonu dibirkaba daashaha noqona madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ha saxnaado hase khaldanaadee ayaad shalay gacmaha u taagteen ayuha almunaafiqiin gacmahaad u taagteen waa kuugu darnay laba sanaan ku darnay waxaa weeye baarlamaankaa shaqaynaya maxamed mursal wixii uu ka hadlayay waad ogeyday baarlamaanku maanta ku jira suma 50% raggii shalay gacmaha taagayey ee wixii ay maaragta u codeeyeen meel marsii waayey baarlamaanka ay dhex fadhiyaan waddadii horey ka xirneeda shalay aad ku soo khaldanteen ee haddana kaliftay wixii aad adinku meel marisan inaad dib uga laabataan waxaa weeye mar kale ha ku dhicina xasan waxaan arkayay isagoo idinqallansanaya arbacadii baan arkayey oo leh berri ma qabaysa mase waa jimco aniga waa lee yeelaahay dhib ma lehe cunug abootokoris aad u maraysa waa lee yeela ad u yaabta ha aniga waa warqadaydaan iska soo qorahaah waa lay aqbalaah dhib ma lehe aniga waa lee yeelaah cunug ayekoris oo wuxuu ku dhegaba loo dayn jiraad moodaa waxaasuu dadka la soo hor istaagay waxaa weeye ninkaas waxa uu la nacnac leeyahay haddaad aqbashaan muxuu ahay toy aad sharciyada khaldane uu la ordayo u meel marisaan wixii ka yimaado dhibaato ah adinka ayaa responsible ah weliba kuwii hore lagulama xisaabtaminoo
waynu ka gudubnay waagii badbaado qarane maanta lagama gudbayo ayuha almujrimiin haddaad isku daydaan inaad xasan sheekh ku raacdaan waxa sharci darrada hay u wado waxaan leeyahay ka fiirsada waxaan leeyahay baarlamaanka markaas markuu yimaado waxaad dhahdaa madaxweyne dalkan burbur ha u horseedin arrinkaa maadaama annagu aan nahay mas-uuliyiintii shacabka ama wakiiladii shacabka ma aqbali karna waa inaad dhahdaan ood xasan ka soo celisaan baarlamaanka واجب كده صار كاس ويا هذا ديدانه وحاول قف كست أو دبعت بريكا دعدون توحكو جارن أدينك أي responsible نقطة أفرت قلب أيام برنامج كيسو كوبيا أدينكم الفردين كليفتا هذا وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.